muxuu yahay dalabka degdega ah ee ka yimid Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe balse uu diiday ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wafdi ka socda Kenya oo erga ka ahaa Axmed Madoobe oo la kulmay mas'uuliin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya xaaladda caafimaad ee Axmed Madoobe iyo wararkii ugu dambeeyay ee dulimaadyadii Kismaayo oo maalintii labaad gabi ahaanba hakad ku jira muuqaalkeena ayaynu ku eegi doonaa haddii aad nagu cusubteen fadlan ku soo biir page-keena oo ka mid noqo saaxiibadayna ugu xiran si aad halkan uga heshaan warar warbixino muuqaalaan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe tan iyo dib u doorashadiisii 25kii bishii hore waxaa marba ka dambaysa ku sii kordhaya cadaadiska iyo culayska xooggan oo ay saarayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka gadaal markii si adag ay isaga diiday doorashadii isaga uu ku soo baxay ee ka dhacday Kismaayo waxa warar soo baxaya isla markaana inoo xaqiijiyeen ila xogogaal ah ay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu wajahayo xaalad caafimaad isaga oo aan safar caafimaad u bixin tan iyo markii uu ka baxay shirkii golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho ka socday Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa mas'uuliin ka tirsan dowladda Kenya waxa uu ka codsaday inay kaga ergeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda isla markaana loo ogolaado in safar caafimaad uu dibadda uu aado maadaama xaaladiisa caafimaad marka ka dambaysa ay sii liidanayso isla markaana uu wajahayo xaalad halis ku ah noloshiisa warka ayaa waxa uu intaas ku dareeyaa in erga ka socotay dhinaca Kenya ee Axmed Madoobe uu soo diray ay soo gaareen gelinkii dambe ee shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lana kulmeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxayna u gudbiyeen dalabka la xiriira in loo ogolaado Axmed Madoobe safar caafimaad oo dibadda inuu u ambabaxo hase ahaatee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ganafka ku dhuftay codsiga ergadii ka socotay Axmed Madoobe wuxuuna u sheegay in go'aanka dowladda federaalka iyo mowqifka Axmed Madoobe ee dowladdu ka gaartay kol hore ilaa imikan waxba uusan iska bedelin ilaa uu tanaasul kala yimaado Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ergadan ayaana ka quusan ra'iisul wasaare Xamse waxaase ay ku laabteen kulan labaad iyadoo uu natiijo la'aan kulankaas uu ku soo dhamaaday sababta ugu weyn ee ergadan uu soo wakiishay Axmed Madoobe ee la xiriira in loo ogolaado in safar dibadda uu ambabaxo oo caafimaadkiisa la xiriira ayaa ah in dowladda kol hore soo rogtay amar la xiriira in dulimaadyada Kismaayo ka ambabaxaya ay soo maraan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya tani waxa uu arkay Axmed Madoobe inay halis weyn ku tahay maadaama maxkamadda gobolka Banaadir kol hore ay jartay waaran soo qabasho ah oo la xiriira in maxkamad la horgeeyo isla markaana eeda culus loo haysto Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xaaladda caafimaad ee Axmed Madoobe ayaa lagu soo waramayaa in maalinta ka dambaysa ay noqonayso mid sii liidata sida ilaha muhiimka ay noo xaqiijinayaan wuxuu Axmed Madoobe uu sheegay in qatar caafimaad uu weyn imikan uu wajahayo dib u dhac weyn oo la kulanka dhaqaatiirtiisa gaarka ahayd ee xaaladiisa caafimaad baxnaaninaysayna uu wajahayo geesta kale waxaa maalintii labaad hakad ku jira dulimaadyadii tooska ah ee tegi jiray magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland ka gadaal markii dowladda federaalka Soomaaliya gabi ahaanba ay joojisay dulimaadyadii tooska ah ee tegi jiray magaaladaasi qatar la xiriira dhinaca ammaanka oo dulimaadyada rayidka ay wajahayaan ayay dowladdu sheegtay in ay ka jirto garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulle Xasan sida daraadeedna ay hakad geliyeen dhammaan dulimaadyadii tegi jiray halkaasi arrintan ayaa timid ka gadaal markii dulimaad ka baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay maamulka Jubbaland u adeegsadeen ku daadgureynta wafdi ka tirsan maamulkaasi oo isugu jiray wasiiro iyo saraakiil ciidan iyo ciidamo ka tirsan kuwa daraawishta maamulka Jubbaland iyo hubkooda lagu geeyay qaybo ka mid ah degmada Doolow ee gobolka Gado isla markaana maalin ka hor halkaasi ka dagaalamay wixii warar ay ku soo kordho wararkeena iyo warbixinadeena dambe ayaad ku daawan doontaan nabadgelyo